toddobaadkan indhaha dunida ayaa ku sii jeeda magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo isugu yimaadeen boqolaal hogaamiye siyaasadeed oo ka kala socda daafaha caalamka. Magaaladaas buuraleyda ah ayaa martigelinaysa shirka sanadlaha ah ee madasha dhaqaalaha adduunka ee 2026 kaasoo furmay 19 bishan xidhmina doona 23 bisha. Shirkan waxaa ka qayb galay hogaamiyayaal badan oo ka socda caalamka kuwaas oo kulmaya xilli dunidu wajahayso xaalad siyaasadeed iyo dhaqaale oo aad u cakiran sababna ay u yihiin kala qaybsanaanta caalamka iyo horumarka degdega ee teknolojiyadda. sidoo kale Davos waxay isugu yimi ku dhawaad 850 maamulayaal iyo guddoomiyayaal shirkado caalami ah kuwaasoo matalaya shirkadaha ugu waaweyn uguna awoodda badan dunida. Waxay falanqeynayaan mustaqbalka dhaqaalaha, ganacsiga iyo sida dunidu ula jaan qaadi karto isbedelada degdega. Davos waa magaalo ku taal buuraha Alpes ee Switzerland waana magaalo yar balse caan ku ah amnigeeda sare, jawigeeda degan iyo martigelinta shirar caalami oo xasaasi ah. Arrimahaas ayaa ka dhigay meelaha siyaasadda caalamka lagu qaada dhigo ee ay hogaamiyaasha caalamkuna kaga hadlaan arrimaha masiiriga ee dunida saameeya. Madasha dhaqaalaha adduunka waxaa la bilaabay sanadkii 1971 waxaana aasaasay aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay oo u dhashay dalka Jarmalka. Markii hore shirka waxaa lagu magacaabi jiray European Management Forum waxaana uu diiradda saari jiray horumarinta maamulka shirkadaha Yurub. Laakiin maanta Davos waxay isu bedeshay madal caalami ah oo lagaga doodo arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda caalamka, dhaqaalaha adduunka, nabadda iyo amniga, isbedelka cimilada iyo horumarka teknolojiyadda casriga. Tan iyo dabayaaqadii 1980 shirka Davos waxa uu noqday goob ay ku kulmaan madax dawladeed, ganacsato waaweyn, aqoon-yahano iyo hay'ado caalami ah iyagoo wada raadinaya xal lagu wajahayo caqabadaha sii kordhaya ee dunida maanta. Ujeedada ugu weyn ee madasha dhaqaalaha adduunka ayaa ah in la abuuro wadahadal iyo iskaashi caalami ah si loo helo xal waara oo wax ku ool ah lagagana jawaabo caqabadaha dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho ee dunida horyaala. Cabdicasiis Saciid Cilmi, warbaahinta qaranka.